Magacaygu waa Jordan, waxaan ahay 22 sano jir. Laakiin sheekadan waxa ay dhacday markii aan ahaa 10 sano jir. Waxa ay ka dhacday Florida. Aniga iyo walaalkay oo 6 sano jir ah iyo waalidkayga waxaan u soconay meel loo yaqaan Disney World. Usbuuca dhammaadkiisii waxay ahayd waqtigii ugu horreysay aan tagno meeshaas. Waxay ahayd inaan galabtii soo baxno, waxaana ahayd safar dheer oo degan. Waxaan waalidkay ku dhahay waan lunnay. Dibaddu waa ay madoobeyd, waxaana la dhibaatooday inaan gaadhiga ku wado waddooyinkan baadiyaha ah sababtoo ah waddooyinka ma lahayn wax laambad ah. Si kastaba ha noqotee, dariiqa aan soconay waxa uu ahaa mid cabsi ah. Waxaan ogaa aniga iyo walaalkay inaan aad u cabsanayno. Haddaan daacad u hadlo, waxaan maleynayaa inay waalidkay xitaa cabsanayeen. In yar ayaan soconnay, kaadi ayaa xoogii qabatay. Waan istaagi karaynay, laakiin ma aan doonayn sababtoo ah cabsida bannaanka taala awgeed. Laakiin nasiib darro ma aan sii hayn karin intaa wax ka badan. Aabahay ayaan weydiistay inuu istaago. Dibadda aan u baxay in yar baan lugeeyay. Waxaa jiray geedo u dhowaa kaynta, kuwaasoo ku xidhnaa kaynta. Dibaddu waxay ahayd qabow, waana gariirayay. Sida aan idhi, waxay ahayd mid aad u madow. In yar baan arkayay sababtoo ah gaadhiga leydhkiisa ayaa shidhnaa. Waxaan gudanayay xaajadaydii marka aan si degdeg ah u maqlay dhaqdhaqaaq ka soo baxaya dhinacii kaynta. Waxaan eegay geedihii iga horreeyay, waxaana arkay wax leydh u eg. Waxaan u ahaa faynuus. Xoog ayaan u eegay, wuu damsanaa. Haddana dib ayaan u eegay, waxaana arkay inuuna damsanayn. Qof ayaa soo qaaday. Faynuuska leydhkiisa waxa uu shaaca ka qaaday weji aan weligay iloobi doonin. Waxa uu ahaa nin kaasoo u muuqday inuu da'da 40-aadka yahay. Waxa uu lahaa gadh cawlan. Wuu dhoola cadeynayay isagoo indhihiisa si weyn u furay. Waxa uu lahaa ilko huruudoo jajaban. Ilma ku soo istaagtay indhahayga. Fartiisa ayuu ii dhaqaajinayay si aan xaggiisa u imaado. Waxaan xidhay surwaalkii, dib ayaan ugu soo orday gaadhiga. Hooyaday ayaa igu tidhi ma fiican tahay. Waan dhoola cadeeyay oon ku idhi haa. Safarkii ayaan sii wadanay. Qofna uma sheegin wixii aan soo arkay. Weli kaadidii way haysay. Waxa aan ka fikirayay waxa uu ahaa ninkii aan arkay. Ugu dambeyntii waxaan imanay gurigii. Waxaan awoodayay inaan tago suuliga. Aniga iyo walaalkay weli waan isku dhoweyn. Habeenkaas markii aan jiifsanay, waxaan u sheegay wixii aan soo arkay ee kediska ahaa. Uma eegayn qof cabsoonaya markii aan u sheegay. Hoos buu eegay. Walwal ayaa ka muuqday wejigiisa. Kadibna waxa uu ii sheegay waxa uu arkay habeenka. Waxay ahayd markii gaadhiga la joojiyay. Waxa uu eegay daaqadda. Waxay ahayd beerta dhexdeeda. Waxa uu yidhi waxaan arkay wax u eg qoys 4 qof ah oo istaagsan beerta dhexdeeda, iyagoo sidoo kale xajinaya faynuus. Kadibna hooyaan weydiiyey, waxaana ku yidhi waayo dadkani. Jawaabteedii waxay ahayd dadkee. Qofna halkan ma joogo. Markaan intaa maqlay, markaasi waxay ahayd markaan gaadhiga ku soo noqday. Habeenkii iyo habeenadii ka dambeeyay, walaalkay iyo aniga waxaan ka doodi jirnay wixii aan soo aragnay. Ma garanayo inay run ahayd wixii aan arkay. Sawirashadeeda weli waxaan aaminsanahay ayaanta waxaan arkay inay run ahaayeen. Sheekadani weli way igu socotaa oo waxay siisay qabow markasta aan soo xasuusto. Halkan ayay sheekadani ku eg tahay. Haddaad ka heshay fiidiyoga, like saar, subscribe na saar kanaalka si aad fiidiyada cusub ula socoto. Waad mahadsantihiin.